xogayaha fulinta dowladda hoose ee Burco Ismaan Maxamed Sheekh Cusmaan oo qayb ka mid ah warfadiyeenada kula hadlayay xafiiskiisa ayaa ka hadlay cabasho ka soo yeedhay iskaashatada gaadiidka loo yaqaan tigaha ama bajaajta. Cabashadani oo salka ku haysa maamul xumo ay sheegeen gaadiidladan inay ku hayaan guddida maamusha iskaashatadani tiglayaasha iyo sidoo kale faragelin ay sheegeen inay ku hayso dowladda hoose ee Burco. Haddaba waa kan xogayaha dowladda hoose ee Burco oo ka jawaabaya eedaymahani. Tiguhu dhibaatada ay ku hayaan magaalada waynu ka warhaynaa. fariyalaataka saacado wax laga cabanaya waa tugo anagu dalandooliyabana hadaan doonay marka waxa way gurigeyga xitaaniga waa ku xiriin magaalada way ku dhibaatada had iyo jeer iyaga qaadicul dariiqa sameeya marka waxa soo dhan ka yimaada hadii ay cabatin jiro cabatinku bilaadku waa cawda laakiin waxa way waan daan weyno iman jirno waan xalili jiray ma garanaysa maanta geesta kale mar la weydiiyay xogayaha fulinta dowladda hoose ee xadhig loo geystay gaadiidleydana cabanaysay iyo sidoo kale sababta loo xiray ayaa waxa uu kaga jawaabay taanigu time-ka ma ogi runta marka laga hadlayo warka imkaad weydiinayso war kama hayo haddii se la xiray kolley wuxuun baa jira dembi ay galeen qofna la iskama xidho haddaan qofku dembi gelin ama aanu buuqiyo qaylo samayn ama aanu wax ka baxsan nidaamkii dawladnimo uu sameeyay ay jirto qofka waxa way kulli wuxuun baa jirta anigu kama warhayo su'aashaad weydiisay laakiin si haday dhacday kulli waxaan qabaa inay wax sameeyeen tahay iyagu si haday dhexdooda kala cabanayaan afar ilaa ka saacado dacwadooda ugu badan waxay u badan yihiin iyagaas qabsada dadkana anagu uma dooro iyaga doorta kuwan ay ka cabanayaan laftooda anagu uma dooro iyaga doorta anagu dawladda hoose hadaan goob joogan baan xaq ugu leen dadka wada u fiirsada waa dad dhalinyaro oo had iyo jeer aan aqligoodu aad ugu fileen oo ama islaanto ama odaygu israadan uu tahriibi doonaayo ay kaga reebeen tahriibtii dabadeedna mushkiladooda iyo suuqyadooda iyo cabatinkoodu maadaama ay wax 20 jir ka yar u badan yihiin dabcan way imanayaan waa fahmi kay saxarsi bulsha TV Burco.